بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله ومن والاه. marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan u diro mahadnaq website-kaas Mogadishu Times iyo dadka walaalaheena oo ka shaqeeya website-kaas oo fursadan maanta siiyay in aan uga hadlo mawduuca maxaa xal u ah Soomaaliya. marka fikradeydu waa arrintan waxay ila tahay dad badan oo Soomaali ah inay jiraan oo fikradahaas oo kala qaba ama fikrada ka sii fiicanba. marka waxaan jeclaan lahaa in dadka barnaamijkan fiirsada ay ogaadaan in arrintan ay tahay fikrad shakhsiyan aniga aan qabo anigoo ah muwaadin Soomaali ah oo jecel wanaagna la raba mujtamaca Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. marka arrinta maxaa xal u ah Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inaan marka hore kusoo koobo 3 waxyaabood anagoo aanan ka hadlin dhibaatadii Soomaaliya ka dhacday iyo wixii halkan keenayba oo marxaladan soo gaarsiiyay ayaa waxaan mujtamaca oo dhan way og yihiin dhibaatadaas wixii keenay iyo wixii siyaasad ahaa oo ka dhacay wadankii iyo dagaaladii wixii ka dhacay marka taa waqti isaga qaadmeen. لكن أريد أن ربي أن كهذا أنا وحتى أنا وربي أن في ريو مستقبلك مع المجتمع الصومالي أو المجتمع والبا وحا فائدة إن أي بريتو في ريان ومستقبل كود أي في ريان مستقبل كود ودير قروبان وأنا وقت السياق قادم وحي لقصو تجي لكن أيوة أنا إلا وين تاريخ ذا إني وحكبرتان تاريخ ذاس سي مستقبلك أنا خلت كود وعلنين محالدتك القلباتك وحي هذا إنك دبالك khaladkii uu galay ayuu dhowr jeer ku soo celceliyaa. marka shakhsiyan aan waxay la tahay xalka Soomaaliya in aan 3 waxyaabood u kala qaybiyo. qaybta koowaad waxay tahay in shacbiga Soomaaliyeed ama dibadda ha joogaan ama wadankii Soomaaliya ba ha dhex joogaan in ay ka mid noqdaan xalka laftigiisa. waxaan aragnay sanadihii la soo dhaafay in mujtamaca Soomaaliyeed aynan shaqaba ku lahayn waxa wadankooda ka dhacay oo ay yihiin dad laga qaaday qaybtii ay ku lahaayeen wadankoodii in dawladda loo soo dhiso in baarlamaan loo soo dhiso in wadamo ay iska yimaadaan wadankii in wixii la rabo laga sameeyo wadanka laakiin shakhsiga Soomaaliga ee muwaadinka ah uusan ku lahayn cod wixii wadankiisii ka dhacay. marka fikradda ugu horeysa aniga aan soo jeedinayo waxay tahay marka hore in la helo codad Soomaaliyeed oo yani sheegta qaybtii ay ku lahaayeen qaata una istaaga. marka waxaa loo baahan yahay mujtamaca Soomaaliyeed gudihiisa ama dibadda ku joogaba inay aasaasaan ururadaas oo ka mid noqda yani lugihii uu ku istaagi lahaa wadanka maxaa wadanka completely waa barbar mana laha institutions wadanka uu ku istaago. sidaa awgeed ayaa wixiina soo dhaafay oo dhan sanadihii hadda 20 sano naga soo tagtay dawladihii la dhisay baarlamaanadii la sameeyay shirarkii la qabtay kulligood wax faa'iido ka yimid ma jirto maxaa yeelay mujtamaca Soomaaliyeed ayaa waxaa laga dhigay peripheral oo waxdana aan laga lahayn isla markaasna aan codkiisiina la weydiisanba. dadka markaas wada arrimaha Soomaaliyana maanta aanay ahayn dad dantii Soomaaliyeed ka shaqeeya ama wixii wanaag waa mujtamaca Soomaaliyeed oo shakhsiyan anigu say la tahay ay noqdeen dad fasaad wada. ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa wuxuu nagu sheegay aayaddu ay leedahay inna allaha laa yuflixu camala almufsidiin kuwa fasaadka wada ilaahay camalkooda guul maba siinaya. marka inaan anaga wax ka sugno dadka muddo hadda 20 sanadooda ma dhici karto. marka mujtamaca Soomaaliyeed oo aniga aan ka mid ahay oo dibadda aan joogo laakiin kuwii gudaha joogayna inaan u kacno wadankaas oo aan ururo sameeyno ururadaas oo ah ururo rayid ah diiniyan ha ku dhisnaadeen rayid ha ahaadeen niman kaliya ha ahaadeen naga ha ahaadeen waxay noqotaba in shacbiga Soomaaliyeed ay noqdaan empowered iyaga inay fahmaan wadankan inay anaga inaan leenahay oo cid kale u maqan maanta aanay jirin baarlamaan la soo dhisay madaxweyne meel kale lagu soo doortayna oo xal u ahayn laakiin anaga ay u tahay in aan wax ka qaban.
haddii markaa wanaaggaas aan la nimaadno oo niyaddeennana ay fiicanta oon wadanninimadii waddankeena oo naga sugaayay aan muujino iyo dadaalkiina lo kaga baahnaa iyo sacrifice waxa la yidhaahdo aan sameyno yani ilaahayna waa nala jiraya maxaa yeele ilaahay asagaa naga ballan qaaday oo yidhi ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin wanaagga kuwa sameynaya camalkooda ilaahay yani ma xumeynayo waxay kasoo horjeedaan maxaa kasoo tahay ama opposite ayadii hore aan soo sheegay marka waa tan ugu horreysa waxaan jeclaan lahaa aan ku boorinayaa oo anigan aan ugu horeeyo in mujtamaca soomaaliyeed ay u kacaan waddankoodii ay ku yeeshaan codkaasoo maqan 20kii sannadood eena soo dhaafay maqnaanshaha aagoodna ay keentay in mar walbaba waxna loo sameeyo waxaas oo aan dan u ahayn mujtamaca soomaaliyeed ama ashkaas aan mujtamaca soomaaliyeed dan u ahayn talabaad aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay in mujtamaca soomaaliyeed dibadda kuwa jooga iyo kuwa gudaha joogaba ay isla markaasna ay roolkoodii ay ka ciyaaraan markaad fiiriso maanta soomaaliya waxay marxaladda ay marayso waxaa cad oo aad u jeedda qof kastoo soomaali oo damiir leh wax uu ka xumaado waddanka gudihiisa waxaa lagu sheegay in ka badan 1 milyan iyo bar inay qaxooti ku yihiin dibadda wadamada deriska nala ah waxaa la sheegay inay joogaan dad ka badan 2 milyan oo qofood ama Kenya ha ahaato ama Djibouti ama Yemen ama xataa Ethiopia arrintaas oo ah really kaarisa xaqiiqiyan oo ah yani wax damiirka shakhsiga bini'aadamka uu ka xumaado in qof walaalo ka ah oo kugu diina oo kugu dal ah in 20 sano ama 30 sano uu ku baabao xariiq qaxooti oo waxba loo qaban siyaasadda ka maqan awgeed oo dawlad u kacda oo hadda aanan dawladihii lasoo dhisay oo dhan koob biyo oo nadiif xataa umay keenin mujtamaca soomaaliyeed jid umay dhisin iskuol umay dhisin marka dan oo ku jirta ma jirto danta waxay ku jirtaa marka annaga dawlad aan dhisanay oo annaga aan leenahay soomaalida shakhsiga soomaaliyeed ee suuqa fadhiya ee cashuurta laga qaado ee dantiisa inuu fiirsado iyo dantii carruurtiisa mustaqbalkiisa inaan fiirsano markaa kadib ayay noqonaysaa in mustaqbalka soomaaliyeed aan qayb ka qaadan karo maanta waxaa jirta in dantii soomaaliyeed laga qaaday shacbiga soomaaliyeed in dawlado kale ay dana ku leeyihiin danahoodii ay naga xoog badan yihiin kuwa darisa waxay maanta leeyihiin national securitygeeni ama nabadgelyadii waddankeena ay halis ku jirtaa haddaana soomaaliya wax ku jiro waxa ka socda aan wax ka qaban oo ay kharibaad iyo faragelin iyo dhibaatooyin ay ku haystaan waddamo kale oo naga fog ayaa sidoo kale ayagana faraha kula jira waxaa jirta in dano ay leeyihiin ururo caalami ah ay noqotay ayagii in ay waxay rabaan soo samaystaan annagoo dhan marka aan noqonay shacbi ahaan dad spectators ah ama dad wax fiirsanayo oo kale ciyaar fiirsanayo waddankii aan fiirsanayna oo dawladaha ku dagaalamaya ururaa ku dagaalamaya UNT baa waxay rabta samaysanaysaa ciidamaha iska imaanaya 4,000 5,000 6,000 cid maanta war u haysa male inta timaada xataa lama oga terms of engagement waxa la yidhahdo ciidamadaas jooga sababtay u joogaan oo la sheegay waxay tahay inay dawlad ku-meelgaarka ay taageeraan ay badbaadiyaan laakiin wax kale lama oga inay wax meel uga dhici karaan qarannimadii soomaaliya xornimadii soomaaliya inay meel uga dhici karaan shacbiga soomaaliya haddii ay dhibaato u geystaan yaa loo raacanaya haddii maaragtay qarannimadii soomaaliya wax uga dhacaan yaa loo raacanaya maanta marka terms of engagement xataa ma laha waddankii baana ka qaaday oo ururo kala iska maamusha 5,000 oo askari 20,000 oo askari wixii la rabaa la keena marka waxaa loo baahan yahay shakhsiyan mujtamac ahaan aniga shakhsiyan say ila tahay inaan ogaano in xabad soomaaliya waxa looga qaadi karin mujtamaca soomaaliyeed wuu ka duwan yahay mujtamacyada kale afrika iyo carabta ka jira qori wax loogama qaadi karo shakhsiga soomaaliyeed 40,000 oo ciidan oo maraykanka uu leeyahay oo tababaran oo qalabka casriga watay oo siyaasadii adduunka watay ayaa xamar wax ka qaadi waaya marka inaan fahmnaan loo baahan yahay waxyaabaha qaladkeenana inaan ku noqnoqon ta kale aan rabo inaan sheego waxay tahay oo muhiima in markaa loo baahan yahay isbeddel annaga inuu nagu dhaco 2 aayadood baan arrintii hore ku lifaaqay arrintaana aayad baan ku lifaaqaya oo ah mawduuca labaad ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim isbeddel annaga gudaha nooga dhacay
isbeddelkaas waa isbeddel wanaagsan oo ah wadaninimo oo cadaalad ah oo aan la rabno wanaag mujtamaca Soomaaliyeed iyo shakhsiga Soomaaliyeed inuu gudaheena ka dhaco arrintaa markay timaado waxay ka mid tahay waxyaabaha aan maanta ka hadlayno oo ah sidee xal loogu heli karaa Soomaaliya dad badan oo Soomaaliyeed oo marxaladaas gaaray ayaa jira oo maanta wadankii diyaar u ah inay wax u qabtaan oo markaa kadibna wadankoodii sheegta ayaga oo yiraahda wadankan annaga iskal ururo ma laha dowlado kale ma laha igaad ma laha UN ma laha AU ma laha Soomaaliya iskal xalkana Soomaalidu ku jira dadkaas kuma jiro haddii anta hore aan aaminana waxa la noolno imaanay ma laha ugu dambeyntii waxaan rabay inaan ka hadlo mowduuc kale oo ah mowduuca ugu muhiimsan shakhsiyan saylatay arrintan Soomaaliya xurriyaddii baan ka qaaday oo wadankii maanta qofkii rabaa soo gali kara qofkii rabaa ka bixi kara xurriyaddan waa xurriyad mujtamaca Soomaaliyeed ashqaas ka mid ah ay dad soo dhinteen oo dhiigooda ay usoo qubeen hooyadii Allah u naxariista ayaa waxay ii sheegtay qiso ah in markii SYL-ka la aasaasay hooyooyinka Soomaaliyeed ee ayada ka mid ahayd markaas iyadoo la guursado oo yar inay muriyadahoodii dahabka ahaa silsiladihii dahabka dhagihii dahabka ay iibiyeen ay siiyeen yani ururka cusub ee Soomaaliya xurriyad u dagaalamay they made sacrifices oday Soomaalida ay taqaano oo leeyahay oday maalin guur Allah u naxariistay oo dhintay ayaa wuxuu u sheegay yani xurriyadda qiimaha ay la leedahay awgeed isagoo ka mid ah xurriyadda u soo dagaalamay inuu maalin maalmaha ka mid ah wafdi Talyaani ee riboorka inay uga hortagaan ay ahayd ay kula shiraan ay gaari waayeen ay masaajidka arbaca rukun dhihi jiray xamar ay ka soo lugeeyeen ee riboorka ay tageen iyagoo qoyay oo dhidid la qoyay awgeed lugahooda daalan yihiin laakiin wadaninimo iyo wanaag ee mujtamaca Soomaaliyeed ay la rabaan awgeed ee arrintaa ku kaliftay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo ilaa Zaylac ilaa Raskamboni jooga ayaa wadankan dhiig u qubay oo u dhintay waxaa ka mid ah Sheekh Bashiir oo la dagaalamay Ingiriiska saad u ogtihiin oo ka diiday in wadankaas la muquuniyo waxaa ka mid ah aad wada naqaan Said Maxamed Cabdulla Xasan oo wada ogna marka wadankan dad ba u soo dhintay xurriyadiisa inuu madax banaanaado oo ahaado wadan yani sharaftaas in maanta mujtamaca Soomaaliyeed ay ku dhex jiraan dad aan arrintaa shaqo ku lahayn ee iibsaday nimadiisii iibsaday xurriyaddii wadanka dhammaanteen waa dembina saaran shakhsiyan anigu saa'ilata marka waa inaan xasuusanaa taariikhdaas waxaa la yidhaahdaa kuwii taariikhdoodii ilaaway ayaa waxay maalin walba ku celceliyaan khaladka ay ku nool yihiin marka mujtamaca Soomaaliyeed oo aniga aan ka mid ah ayaa waxaan rabaa inaan xusuusiyo xalka Soomaaliya wuxuu ku jiraa inaan xasuusano aan sharafno dadka dhiigooda iyo maalkooda u qubay in wadankaas uu xor u noqdo oo u dagaalamay in calanka Soomaaliyeed la istaajiyo u dagaalamay in ajnabi uusan wadankaasi ku lahaanin voice cod uusan ku lahaanin maxaa yeelay codkaas waxaa iskale shakhsiga Soomaaliyeed ee muwaadinka ah ayaa iskale marka ugu horeysa ma laha igaad ma laha UN ma laha wadan kale shakhsiga Soomaaliyeed ayaa iskale ama baadiya ha ahaado ama PhD ha wato shakhsigaas muwaadinka ah waa in codkiisa la ixtiraamaa waa in codkiisiina la maqlaa haddaan arrintaa la ogaan annaga waxaan noqonaynaa marka dad manipulation lagu sameeyo ee lagu ciyaaro saan u aragnayba 20 sano ee naga tagtay marka intaas ayaan shakhsiyan yani kusoo koobaya waxaan rajaynayaa insha Allah in doodaasna dad fara badan ay ka qayb qaadan doonaan wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi